Assalaamu calaykum kusoo dhawaada kanaalka tarjumaad waxaan idiin soo gudbinaynaa qiso aad wax badan ka faa'iidi doontaan. Shiikh caalim ah oo ka mid ah culimada islaamka lehna hanti iyo sharaf ayaa asagoo ardaydiisa u akhrinaya cilmiga waxaa soo galay masjidka nin aan la aqoon oo aan lahayn muuqaal arday. Waa uu soo galay dadka ayuuna salaamay, kadib gadaal ayuu fariistay asagoo shiikha dhagaysanaya, wuxuuna gacanta ku sitay buraashad uu biyo ku watay. Shiikhii caalimka ahaa cashirka ayuu joojiyey, ninkii ayuuna soo eegay wuuna u weji furfurnaaday. Kadib wuxuu weydiiyey, baahi iyo dan miyaad leedahay oo aan kuu fulinayno, mise su'aal ayaad qabtaa oo aan kaaga jawaabayno? Ninkii wuxuu yidhi, maya, labadaas midna ma rabo, waxaan maqlay cilmigaaga iyo akhlaaqdaada, waxaana rabaa inaan kaa iibiyo buraashadan. Waxaana dhaar ku maray inaan qof ka iibin ilaa qof qiimaheeda yaqaana maahane, adiga ayaana ah midka qiimaheeda yaqaana. Caalimkii wuxuu yidhi, ii dhiib buraashada. Waa uu u dhiibay, kadib wuxuu bilaabay inuu fiirfiiriyo, waa ayna cajabisay. Wuxuu yidhi, meeqa ayaad gadaysaa? Wuxuu ku jawaabay, 100 diinaar ayaan gadayaa. Caalimkii wuxuu yidhi, waa raqiis, waxaan ku siinayaa 150 diinaar. Laakiin ninkii waa uu diiday, wuxuu yidhi, waa 100 diinaar oo keliya, lagama badinayo lagamana yaraynayo. Kadib caalimkii wiilkiisa ayuu ku yidhi, orod hooyada u tag oo 100 diinaar ka soo bixi sanduuqa. Lacagtii waa la soo bixiyey, ninkii ayaana farta laga saaray. Waa uu baxay asagoo faraxsan oo dhoola cadaynayo. Kadib dadkii goobta joogay ayaa kala dareereen ayagoo la yaaban biyahan 100 diinaar laga bixiyey. Caalimkiina gurigiisa ayuu galay si uu u seexdo. Kadib wiilkiisa ayaa wuxuu eegay buraashada, wuxuuna ogaaday inay ku jiraan biyo caadi oo keliya. Kadib aabihiis ayuu u tagay, wuxuuna ku yidhi, aabbahayga xigmadda lahaayow, ninkii waa uu ku qayaanay, biyo caadi ah ayuu wuxuu kaa siiyey 100 diinaar. Caalimkii waa uu dhoola cadeeyey, wuxuuna yidhi, wiilkaygiyow, adiga araggaaga muuqda ayaad ku aragtay, waxaadna ogaatay in ay yihiin biyo caadi ah. Anigana aragtidayda dheer waxaan ku ogaaday in ay yihiin biyaha wejigiisa oo nafsadiisa sharafta leh ay u diiday inuu ku daadiyo dadka hortooda uuna wax ku weydiisto, maadaama uu ahaa nin baahan. Ilaah ayaana mahad leh oo i waafajiyey in aan fahmo baahidiisa. Qisadan waxaan ka faa'iideynaa waxaa loo baahan yahay in la dareemo dadka qaba baahiyaha gaarka ah oo aanan sheegan karin. Dadka caamada ahna ay u maleeyaan dadkan inay yihiin dad wax haysta. Waxaan kaloo ka faa'iideynaa qisadan dadka waxay wadaagaan suuradda iyo muuqaalka kore, laakiin waxay ku kala duwan yihiin aragtida. Qaar waxay leeyihiin aragti dhow, qaarna waxay leeyihiin aragti fog. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Fadlan haddii aad ku cusub tahay kanaalkan tarjumaad, subscribe saar, gambaleelkana riix si ay kuu soo gaaraan muuqaalada cusub ee aan soo gelino.